waxaan shirkan jaraa'id kooban qabanaynaa maanta waxa uu daaran yahay kulan aan isugu nimid xarunta madaxtooyada oo ay ku ballansanaayeen saddexda xisbi qaran oo lagaga arrinsanayay masiirka iyo qadiyadda guud ee waddankeena oo ay ka mid tahay difaaca qaranka iyo guud ahaan difaaca qaranka iyo habsami u socodka doorashooyinka iyo arrimaha kale ee masiiriga uu ka mid yahay MOU-ga ayaan lagaga tashanayay waan ka soo qayb galnay waxaa nasiib waxaa nagala soo qayb gelin xisbigii saddexaad ee waddani labada xisbiye kale ee aan halkan ku joogno ucud iyo kulmiye waanu dhammaystirnayn de waxaana noqotay in markaa anagu aan ka hadalno wixii markaasi uu ahaa ajendaha shirku si fiican baanan uga hadalnay si fiican buu noogu dhacay walaalaha iyaga kale xisbiga wadanina dee wax kastoo ay ku mashquuleen ba waxaan leenahay welcome way nagala soo qaybgeli karayaan mar labaad iyo mar saddexaadba oo gacmo furan baan kusoo dhaweyneynaa waanu noo sii socon doonaa shirka insha allah wixii hadda ka dambeeya oo dee arrimaha masiiriga ee aan idiin sheegnay lagaga hadlayo sidaas ayaan markaa shirka maanta kusoo gabagabeynay sidaa u sheegay murashax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid waxaa maanta kulan isugu yimid xarunta madaxtooyada oon hadda ku sugannahay labada xisbi qaran ee xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye to ay naga maqnaayeen walaalahayaga xisbigii saddexaad ee xisbiga waddani kulankaasi oo saddexda xisbi ay u ballansanaayeen saa uu murashax madaxweyne u sheegay nasiib darase aynan nala joogin oo ay naga maqnaadeen xisbiga waddani saa u sheegay murashaxu arrimo waaweyn oo arrimaha qaranka aanu kaga wada hadalay si aad iyo aad u wanaagsanna labada xisbi way iskula afgarteen kii uu guddoominayey murashaxa madaxweyne xisbiga ee talada haya madaxweynaha qaranka Muse Bixi Cabdi dhanka kalena u joogay murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid iyo hoggaanka labada xisbi gudoomiye ku-xigeenka koowaad xisbiga kulmiye iyo hoggaanka xisbiga ucidba si wanaagsan buu shirkaasi noogu qabsoomay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin arrimii aanu ka wada hadlay dhammaantoodna si wanaagsan baan iskula afgaranay oo aanu mataqaanaa iskula qaadanay waanay noo sii socon doonaan shirarku haddii alla yidhaha marka ka dambe loo baahdo walaaladayada xisbiga waddanina waxaanu rajaynaynaa shirka dambe insha allah inay ka soo qayb galaan shirkaa maantu shir aad iyo aad muhiim u ah ayuu noo ahaa labada xisbi waxay ka wada hadlayna dhammaantood waan isla qaadanay ha ugu mudnaato arrinta doorashooyinka ee hadda dee waqtigeedu ina saaran yahay sida loo hirgelin lahaa difaaca qaranka iyo mataqaanaa midnimada dalka iyo guud ahaan arrimaha kale ee dalka yaalla ee MOU ka mid yahay dhammaantood qodobada si wanaagsan oo isafgarada oo aad u qiimo badan ayaan isula fahamnay waxaananu insha allahu tacaala ku ballannay in shirar dambena la isugu yimaado waxaanu rajaynaynaa shirka dambe in walaaladeeda xisbiga waddan ay nagala soo qaybgeli doonaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu